al-shabaab waxay sheegataa inay la dagaalamayso dowladda Soomaaliya markaad fiirinayso meelaha ay qaraxyada iyo la beegsadaan waxaa ka mid ah hoteelo oo dad badan joogaan makhaayado iyo meelaha shaaxa lagu gado taasi haddii al-shabaab dowladda la dagaalamayso maxay meelahaas oo la beegsataa qaraxyada runtii waxa weeye anaga horta awalan qofka muslimka dhiigiisa wuxuu naga joogaa meel aad iyo aad u weyn marnana xarka shabaab mujaahidiin ma kuma degdegayso mana ku xadgudbayso qof muslima dhiigeed biidni illahi tabaaraka watacaala ahdaafteedana ka mid maaha bal waxa ay jecel yihiin waxa weeye in gaal uu fakado intii muslim uu dhiman lahaa xataa gaal ka fakado laakiin waxaa rabaa in la isweydiiyo meelaha hadda hoteelada lagu sheegayo hoteello ma yihiin mise waa xerooyin ciidan weeye waxaan ognahay hoteelada muqdisho ninkii tegey yaa garanaya kolley hoteelana waa hoteeladka shacabka muslimiinta caadiga iska seexdaan ummaddu ay degan tahay weligeed al-shabaab ma aysan qarxinin laakiin hoteelada maanta la qarxinayo dhammaantood la fiiriyo awalan waxaa lagu gadaamay waxa weeye dhagax waaweyn oo waxa weeye difaaci ah ثانيا waxaa lagu soo xashriyay lagu soo kulmiyay lagu soo ururiyay ciidan iyo jiyuush kala duwan oo inta ilaalinaysa wax meesha ku jira taa waxay tusinaysaa horta meesha inaysan hayn hotel inaysan hayn maxay hoteelada dadka shacabka muslimiinta ay degan yihiin lama ilaaliyo dhagax laguma gooyo qadiyada labaad waxa weeye inagu waxaan la dagaalsanahay dadaan la dagaalsanahay dadkaas waxa weeye dadka gaalada ah iyo dadka gaalada raacsan ee murtadiinta meesha ay galaan magaca ay u baxsadaan ictibaar ma laha haddii xero caskari ay dhahaan ama ay dhahaan xero ciidan iyo hadday u bixiyaan intay degaan ay hotel u bixiyaan macnaha isku mid weeye waxaan leenahay marka hoteelada waxa loo yaqaan maanta illee waa la qarxiyay dhammaantood waxay xiraan ciidan weeye waa wasaarado ay leeyihiin nimanka gaalada raacsan iyo gaalada laftigooda ay leeyihiin wasaaradii maaliyadda hotel ay degan tahay wasaaradii waxa weeye gaadiidka cirka waxay ku tulaan hotel ay degan wasaaradii waxbarashada hotel degan tahay amiradii al-shabaab markii dadka la hadlaya mise la qudbeynaya mise makhaayadaha ay joogaan haddii intii dowladdii Soomaaliya soo dirsato askar mise diyaarado soo dirsato iyo meeshaas qarax la beegsato oo laga yaabo inay hal amiiro shabaab ay ku dilaan ay laakiin dad badan oo shacab ah ku dhamaadaan taasoo kale miyayna ahayn taad hadda aad noo sheegaysay taasoo kale ma wax la aqbali karaa horta inagu ma ahan maxay ahaday shacabka muslimiinta anagu isku mid ah muslimiin aan hay isku dhiiganahay isku damaanahay gaaladuna runtii anagoo xataa meesha ma teginin iska daaya oo shacabka kaligood yihiin ayay laayaan amiir shabaab iyo waxa weyn shabaab xataa askarigiisa uusan ku jirin dadkeena habeen iyo maalin yaan uga dignaa dhanaa war ka leexda ka carara waxaana weeye nin aan nimanka taageersanayn hoteelada ay saxdaan ma tago idan waxa weeye waxa meesha tagahay 99.9 iyo waliba maxay dhigar 100% dhigi karo waa iyakii madaxdoodii iyo waxa weeye sirdoonkoodii iyo waxa weeye dadkii iyaga maxaa u ahaa ciidanka u ahaa staafka waardiya u ahaa dadkaas hoteelada yaa taga haddaan wax qarxinayno waxaad maqli lahayd hotel ku yaala Bakaara la qarxiyay waxaad maqli lahayd hotel ku yaala suuqa xoolaha la qarxiyay waxaad maqli hotel ku yaala waxa Hurwaaya la qarxiyay ayaad maqli lahayd haddii aan hotel kasta qarxinayno laakiin hoteelada Makal Mukarrama ku safan waxa way nimanka wasaaradahoodii markay u adkeysan waayeen intay meel samaystaan isku aamini waayeen oo hoteelada ay soo galeen taa hadda waxa waa xero ciidan hotel lama yiraahdo uma qasdin qof muslim Soomaaliya ama muslim kale xataa uma qasdin anagu ila dilo marna aad iyo aadan uga taxadirnaa meesha la galayna inta soo bilooda laga yaabaa in waxa weeye lagu hayo mukhaabaraad iyo sirdoon lagu hayo